maanta dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag waxay u ahayd maalin uga duwan dhammaanba maalmihii bilihii iyo sanadihii la soo dhaafay oo gaadhay muddo ilaa 60 sanadood ah galinkii dambe ee maanta ee galabnimadii ayay ahayd markii uu degmada Elafweyne gobolka Sanaag iyo walibana sidoo kale guud ahaan gobolka ay soo gaadheen qalabkii iyo macdaadkii kala doorsoonaa ee lagu talagalay in lagu bilaabo dhisitaanka wadada Sanaag ugu horeynba waxaana munaasabadaas lagu soo dhaweynayay qalabkani ka hadlay xildhibaan Ibrahim Arraale Cabdi oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland agaasimaha gaadiidka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Saciid Nuur Jaamac ayaa ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay qaabka yaanaan socodka gaadiidkani waxaan iyo wax ku marayaba si wanaagsan loo soo dhaweeyay dadweynaha ku nool degmadan iyo gaarkeeduna ilaa intay marayeen dareen runtii aad u qiiro badan ay ku soo dhaweeyeen waantii waxyaabaha Ilaahay lagu mahadiyo waana horumarka ugu weyn intii anigu kulli aan garaasiday inta aan maqlayba waa horumarka la taaban karo ee ugu weyn ee ka dhacay dhulkeen mar hadiiba qalabkii la keenay lana bilaabayo wadadii oo bishan gudaheeda la bilaabayo sidaan xogdan ku siinaya waxa weeye wax laga bilaayo wadada 3 meelood baa laga bilaabaya Ceerigaaba laga soo bilaabaya Elafweyne baa laga bilaabaya ina Fadweyne laga soo bilaabay boqolkii kiiloomitir ugu horeeyana waa la helay waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa ilaahana soo sabata saaray ee dhulka dheer ee waxa weeyaan buuraha iyo qowraarimaha iyo dooxyada dhaadheer lahaa ilaahay intuu saawa warahadan lagu soo sabata saarayna sanada culus sidana marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadweynihii meel kasta oo aan soo maraynay nagu soo dhaweynayay noo saxabatumayay dhiirigelin dawladda siinayay dhiirigelin iyo hambalyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u dirayay fakarkiisa wanaagsan ee wadooyinka ku aadan iyo dhammaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynaha halka kan aanu salaan uga gudbinaynaa deegaankii aanu soo marnay oo dhan aanu ka sidno oo mashaxarad iyo wax weyn saxabatum ay ku soo dhaweynayaan horumarka dalku ku talaabsaday halka kanna waxa maraya qalabkii dhismaha ee wadooyinka oo dhan wax weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan ka tari lahaa waana qalab qaali ah oo runtii maskax badan iyo muruq badan oo galay waxaan filayaa xaggii xukuumadda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland way ka soo dhamaatay oran maayo wax weyn dadaalkeedii weynaa idinka horumarkii iyo qaybtii koowaad arkaya laakiin qaybtiini waa dhiman dadweynuhu marka dadweynaha waxaan leeyahay soo dhaweynay iyaga iyo dadka sidaba waxaan leenahay maanta waxay nooga dhigan tahay farxad waxay nooga dhigan tahay wadadii oo samaysantay bay nooga dhigan tahay maanta qalabkan soo gaarsiin inta waxa ay raacda degmada Elafweyne aad bay kaaga mahad celinaysaa wax qabadka dhabta ah ee lagaaga bartay ee aanay imika ku ahayn ee Soomaaliland oo dhib ay gaadhay baa lagaaga mahad celinaya Ilaahay baana mahad ku gaarsiiyay halkaana ka sii wad mucaaradku waligood yaalo iska daba qayliyaan ha ka daba qaylayaan shan baa tiriyo 15 damaan ugu celinayna madaxda iyo mas'uuliyiinta heer degmo ayaa iyaguna dareen gaar ah ku soo dhaweeyay dhammaanba qalabkan iyo macdaadkani waaweyn ee maanta soo gaadhay degmada Elafweyne galbeedka gobolka Sanaag halka ay shacbi weynaha ku dhaqan xarunta labaad ee gobolka Sanaag ee degmada Elafweyne oo helana aragtida macdaadkani ayaa iyaguna si isku mid ah u soo dhaweeyay halka ay sidoo kalena dadweynuhu ay ka muujiyeen inuu maanta ka fuuqay amaba uu ka soo booday dareen iyo ladh gaar ah oo ku dhaganaa muddo gaadhaysa ilaa 60 sanadood si kastaba ha ahaatee qalabkan ayaa qayb ka midii waxay u sii socon doontaa dhanka ay magaalada Ceerigaabo iyagoona habeenimada caawa ah ay u sii hoyan doonaan degmada Yufle ee gobolka Sanaag halka qayb ka midana lagu rogay degmada Elafweyne ee gobolka Sanaag deegaanka shacbi weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa waxa maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee abid noloshooda ugu farxadda badnayd ama la oran karo waxay ka duwaneyd muddadii ay noolaayeen waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland